وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan warayska qabanaynaa mas'uuliyiinta gacanta ku haya masaajidkan Pan Africa oo hadda saad u jeedaan qabya ka meel fiican ay soo gaarsiiyeen waxay halkan ay codsi uga soo jeedinayaan dhammaan muslimiinta gaar ahaan jaaliyada Rafiq Umar iyagoo ka codsanaya in masaajidkan loo dhameystiro loona koglo loona maartay shingadii wax loogu sameeyo marka waxaan bal ka wareysanaynaa xaaladda masaajidka iyo codsigooda soo gudbiyaan مسؤولين مساجدك. بسم الله الرحمن الرحيم. مركي كوباد وحن سلام يا وفتي بلارن إن صوب بغضي محن كل هذا نصوب بغضي أهل نمدي إسلام نمدا محن لنا مركي كوباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك بعدي وحن معناها كور بحنا مساجد كان أو مساجد كويا اللي قبلها اللي لها بان أفريقيا فوحن معناها إذين كور بحنا تذكر مسلمين تردمان كنول محن كل هذا دبدية تلك جودي سبا كارهان جاليدها رافق عمر دبدها جرا مساجد كان ساد وركتهم قبيو نجاي هاي اسكتي كان نجي أنا محن كل هذا تذكر قبلها انتجن dad iska dinlay oo xogaa meesha iska degan baan ahayn isku deganagi marka halka hadda idin muuqata sawirka laga qaaday buu macnaha soo gaarsiiyay marka waxaan idinka codsanaynaa idinkoo mahadsan dhammaan dadka jaaliyadaha ee dibadda jira ee maxaan ku raahdaa Rafiq Umar hadda ka horba waxyaalaha faraha badan ee ku saabsan arrimaha diimaha iyo masaajidada naga soo caawiyay waxaan haddana macnaha idinka codsanaynaa inaad naga soo caawisaan masaajidkan oo halka macnaha qabiyada aan dhaafin kari laanahay dhamaystirkiisa oo maxaan ku raahdaa qaybo fara badan ka kooban oo darbiyadiisii hadda ay qabyo yihiin talbiistiisii iyo daaqadiisii iyo albaabihiisii iyo jingadiisii iyo dhammaystirkiisii iyo dadmadiisii iyo gogoshiisii dhammaan ay noo harsayiin ilaa minaaradii aanu jecelahay macnaha inaan gaadhsiino dee hawadanadii annaga aan macnaha inaanu masaajid aan muslimiintoo dhan ku cibaadaysato aanu ku talagalay inaanu dhisanno halkaasi tabartanadiina dhaafin weyday marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ka codsanaynaa walaalahada iyaga macnaha dibadda jiray inay naga soo caawiyaan masaajidkaas dhismihiisa iyo qabiyatirkiisa oo halka anagu hadda aan runtii dhaafin laanahay sidaas aan macnaha walaalahanaga dalka dibaddiisa jira iyo dhammaan muslimiintaba aan macnaha wixii na soo caawin kara ka codsanaynaa inay naga soo caawiyaan oo aqalka ilaahay si iyagana ilaahay aqaladooda jannada aqala fara badan uu uga dhiso adduunka iyo aakhirabana ay u liibaanaan iyagoo anagu macnaha aan u ducaynaynaa haddana wixii ay dhisaan waxaa weeye aqalkii ilaahay oo aakhiriya adduunkaba dee ay wada cilmi leeyihiin inay darajo sare ku gaadhayaan marka si ilaahay jannada uu aqala fara badan ooga dhiso adduunkana uu joog wanaagsan ay u helaan waxaanu ka codsanaynaa inay dhammaan inay naga soo caawiyaan oo masjidka noo soo dhammaystiraan aqaladood iyo danahoodaba allaha dhammaystiray wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda waxaad daawateen mas-uuliyiinta masaajidka gacanta ku haya oo inii soo bandhigay insha allah maxaa bal qiimaha aad isleedihiin masaajidka hadda haddii loo helo dad gacan ka geysta ma qiimeynta lagbaad u baahantahay wad wanaagsan hadda haddii aan macnaha tii hore ka qiyaas qaadano hadda halka annagu aanu gaadhsiinay lacag 250 ba annaga halka hadda yaan gaadhsiinay wax noo yaalana sibir yar iyo garaadkaas hadda in la xidhxidho la rabaa jira marka waxaa dadkii masaajidada hadda raasoo kale ka dhisay markaan qiyaas ka qaadanay ilaa 500 oo kun oo dambe oo xataa gogasha kolka qiimeyntii ku beeni jirin sida roogoo kale marka jiingada alwaaxa iyo daaqadaha iyo tarshadaha iyo maxaan ku dhahaa macarinji te hawl aad u ballaaran baa hadda wuu bilaaban yahay dhexdhexaadkii iyo qaarkii dambe iyo midna ma gaadhin shubabkii caalamiga ahaa hadda midna lama shubin weli marka sidaan dadkii culimadii masaajidadii hore dhistay markaan macnaha qiyaastoodii weydiinay markii hore waxay yidhahdeen masaajidka sidan hadda mitiraadkiisu sidan yahay ilaan waa la dhisay oo raasay ka wada dhisan yihiin ilaa 700 kun buu qiyaaskii ku kacay oon minaaradda weliba ku jirin marka 200 ilaa maxaan ku dhahaa 50 wax yar oo garaadkaasi nooga yaallo baa hadda way isku dayganagii hore yuu gaadhay
marka waxaan rabnaa inay qiyaasta hadda lanaga soo caawin ilaa 500 oo kun iyo maxaan ku dhahdaa minaaradii oo waliba sidaa ku jirin isagoo waliba gooshuna qiimaysneen in macnaha sidaa ku taam noqon lahaa yaa la noo sheegay dadkii masaajidada hore soo dhisay aad u mahadsantihiin dhammaan daawadayaasha warbaahinta Raasa News waxaan isoo bandhigi doonaa muuqaalkan oo dhammaan masaajidka suu qabyada u yahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad gacan ka geysan doontaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين